بسم الله الرحمن الرحيم ظهور wanaagsan qodobada wararkeeda siyaal maanta oo idin hayo waxa ugu waaweyn golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiyay sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis lagu sameeyay dowladda Soomaaliya oo sheegtay inuu isku soo dhiibay sargaal al-shabaab u qaabilsanaa qaraxyada madaxweynaha Soomaaliya oo kormeeray xarumaha lagu dhisayo ololaha ishalqaan ee magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland oo isku khilaafay xeerka madaxweynaha Soomaaliland uu xaaladda degdega ah ku galiyay deegaano ka tirsan gobolka Sanaaga ciidamo gadoodsan oo la wareegay bangiga dhexe ee Boosaaso iyo saraakiisha Puntland oo amar ka soo saaray hoggaanka dambi baarista Puntland oo sheegay in meel fagaaraha lagu qaadayo kiiska Caaisha Ilyas dhinacyada isku haya Suudaanta Koonfureed oo Addis Ababa kulan lagu badbaadinayo heshiisyada nabadeed ee sii liicaya iyo ciidamada Yahuudda oo mar kale weerar ku qaaday magaalada barakeysan ee markale duhur wanaagsan waa khamiis 2 bisha May sanadka 2019 waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta warka duhur kulan ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka qaranka oo muddo la yaalay golaha wasiirada ee Soomaaliya waxa sidoo kale la ansixiyay sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis lagu sameeyay xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya kulankooda uu gudoominayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxay aad uga doodeen sharcigan oo muddo xukuumadda lagu cadaadinayay inay meel mariyaan kaas oo xubnaha xisbiyada siyaasadda ay ku dhaliilayeen dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda inaanay doonayn dalka doorasho waqtigeeda ay ka dhacdo iyadoo ilaa hadda aan lahayn sharciga doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana waxa uu kala hore sheegay in sharcigaas uu u gudbiyay xukuumadda Soomaaliya golaha wasiiradana uu la yaalo golaha wasiirada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo muddo ka shaqeynaysa sharcigan ayaa maanta waxa lagu guuleystay in golaha ay ansixiyaan iyadoo sidoo kale golaha ay meel mariyeen sharciga axsaabta siyaasadda oo dib u eegis isna lagu sameeyay sharcigan ayaa fududeynaya sida isdiiwaangelinta axsaabta ee sida ku meel gaarka ah hadda uu diiwaan geliyo guddiga iyo shuruudaha xisbi kasta looga baahan yahay in uu buuxiyo markii uu noqonayo xisbi qaran oo ka qayb galaya doorashada soo socota ee 2021 oo la filayo in ay dalka ka dhacdo taas oo ilaa hadda dad badan ay sulugsan yihiin nooca ay noqonayso maadaama weli aan lahayn nooca doorasho inkastoo xukuumadda Soomaaliya ay ku celcelinaysay in heshiiskii qof iyo cod ee uu doorashada ku soo galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sideeda u dhici doono iyada oo siyaasiyiinta iyo dad aad u fara badan ay sheegayaan sida wax ay ku socdaan marka la fiiriyo inaanay suuragal ahayn in qof iyo cod doorasho ah ay dalka ka dhacdo dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta kormeer waxa uu ku tagay xarumaha ololaha ishalqaan uu ka soconayo ee dib dayactir loogu sameynayo xarumahaas oo kala ah tiyaatarka qaranka xarunta madxafka iyo maktabadda waxaana ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya uu saddexdaasi xarumood kormeeray iyada oo shaqaale wasaaradeed ay ku howlan yihiin dhamaystirka ololaha ishalqaan ee dib dayactir loogu sameynayo xarumaha madxafka iyo maktabadda iyo tiyaatarka qaranka ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ka soconayay ololaha ishalqaan ee dib loogu soo nooleynayo dhismayaashaas oo muhiim u ahaa bulshada Soomaaliyeed waxaana madaxweynaha halkaas uu kula kulmay mas'uuliyiinta saddexdaasi xarumood iyo sidoo kale howlwadeenada dowladda Soomaaliya ee hawsha ka waday xarumahaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku bogaadiyay dhalinyarada iyo haweenka ku howlana ololaha ishalqaan ee dib dayactir loogu sameynayo saddexdaasi xarumood oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ciidamo gadoodsan waxa ay maanta la wareegeen bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso iyadoo saraakiil ka tirsan maamulka Puntland oo arrintan ka hadlanaya amar soo saareen Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka ee Puntland isla markaana gadoodsan ay la wareegeen xarunta bangiga dhexe ee magaalada Boosaaso
ciidamadaas ayaa waxaa la sheegay inay xilligani ka cabanayaan mushaar la-aan soo wajahday, sidoo kalena xilligii ay xarunta la wareegayeen ay rideen rasaas fara badan, taas oo sababtay inay istaagaan isku socodkii ganacsiga iyo dadweynaha ee xarunta bankiga. intaasi kadib saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa degay xarunta bankiga oo ay la wareegeen ciidamada kadoodsan, isaga oo ku qanciyay inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen islamarkaana mushaarkooda ay heli doonaan, sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada. taliyaha ciidanka ee booliska ee Puntland Generaal Muxiidiin Axmed Muuse ayaa beeniyay inay jiraan ciidamo saaka kadood ku qabsaday bankiga dowladda ee magaalada Boosaaso, kuwaas oo mushaar la-aan ka cabanayay. wuxuu sheegay inay jiraan kuwo aan la siin kunooyin dhowr bilood, laakiin wax mushaar ah aysan ka maqneen. ciidamo ka tirsan kuwa birmadka ee Puntland ayaa saaka kadood ku qabsaday bankiga dhexe ee dowladda, iyadoona la maqlayay risaas ay rideen, laakiin taliska booliska ayaa arrintaasi hadda beeniyay. wararkii ugu dambeeyay ee haatan laga helayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, islamarkaana ay dib u bilowdeen howlihii shaqo ee bankiga dhexe ee magaalada Boosaaso. waa markii labaad oo ay gadoodaan ciidamo ka tirsan kuwa Puntland tan iyo markii la doortay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni, waxaana horey u gadooday ciidamada Puntland ee ku sugan deegaanka Galkala ee gobolka Bari, walow markii dambe dib loo celiyay. hoggaanka dambi baarista ee maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen in meel fagaara ah lagu qaadayo kiiska Caaisha Ilyas oo kufsi iyo dil la isugu diray dhacdadaas oo ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. taliya ku-xigeenka hoggaanka dambi baarista ee maamulka Puntland Cismaan Cabdi Maneeno oo warbaahinta maanta kula hadlay magaalada Garowe ayaa sheegay in kiiska oo la qaadayo maalinta Sabtida ah ee soo socota lagu qaadayo mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada Garowe si dadka ay fursad ugu helaan kiiska sida uu dhacayo dhageysigiisa iyo go'aanada maxkamadda ay gaarayso. Cismaan Cabdi Maneeno ayaa tilmaamay kiiska oo miisaankiisa lahaa isla markaana si weyn u saameeyay Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya ay tahay in meel fagaara ah lagu qaado si dadka ay uga qancaan garsoorka ka jira maamulka Puntland. shalay waxa ugu dambeeyay kiis Gaalkacyo ka dhacay oo kufsi ah gabar yar oo 8 sano jirta, waa nin weyn aan u malaynayna inuu waliba dadkan la yiraahdo diasporada uu yahay xoogaa farxumeed. waxaan kaloo idinku bishaaraynayaa kiiskii isla Gaalkacyo ka dhacay oo gabadhii Caaisha Allah u naxariistee foosha xumaa wuxuu ka dhici doonaa jaamacadda Bariga Afrika maalinta Sabtida. waa open anoo ka faa'iideysanaya shirkan, waxaan rabaa inaan dhiina ku aragtaan wixii dhacay. dadku xoogaa yar samirkaa ku yar haddaan nahay Soomaali. baaristu waxay u baahan tahay waqti dheer in la siiyo. Sabtida marka waa soo bandhigay, anagu maxkamadda waa geynay, maxkamaddu waxay ku soo bandhigi doontaa halkaas iyadaa taqaana qofkay sii daynayso oo sharcigu sii daynayo iyo qofka la xukumi doono. biidnillaahi tacaala idinkana waxaan idinka farayaa inaad ka soo qayb gashaan si hufan oo nadiifa wixii ilaahay idin faray sharcigu Puntlandna inaad ilaalisaan. sidaas islamida waxaa xalay warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan xafiiska xeer ilaalinta ee maamulka Puntland in kiiskan la qaadi doono dacwadiisa lagu qaadi doono magaalada Garowe maalinta Sabtida ah, waxaana arrintan ay tahay mid si weyn ilgaar ah loogu hayo kiiska Caaisha Ilyas oo gilgilay guud ahaan Soomaaliya. ehelada Caaisha ayaa sida ay sheegeen waxay magaalada Gaalkacyo uga guureen cadaalad darro ay dareemeen, iyaga oo sheegay in kiiskooda la gacan bidixeeyay, sidoo kalena ay u dheer tahay hanjabaadyo ay kala kulmayaan dadkii falkii arxandarrada ah kula kacay gabadhooda. wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. maamulka Somaliland baarlamaankooda ayaa waxa ay maanta khilaaf ku sigtay gacan ka hadal inuu dhexmaro ay ku yeesheen. waa maamulka Somaliland baarlamaankooda ayaa khilaaf ku dhawaadeen gacan ka hadal uu dhexmaro waxaa kulan
noocaas ah ay ku yeesheen magaalada Hargeysa iyadoo xildhibaanada baarlamaanka ee Somaliland ay markii dambe kulankooda buuq uu ku soo dhamaaday kulanka oo looga doodayay xeerka madaxweynaha Somaliland uu ka soo saaray gobolka Sanaag ee xaaladda degdeg ah lagu geliyay ay baarlamaanka dood ka yeesheen Cali Xasan ayaa sii dhameystiray xubnaha xildhibaanada baarlamaanka maamulka Somaliland oo maanta kulan ku lahaa xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxay isku khilaafeen xeerka xaaladda degdega ah ee uu madaxweyne Muuse Biixi dhawaan ku soo rogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kulanka uu shaqadoominayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Somaliland ayaa waxaa soo xaadiray in ka badan 100 xildhibaan markii uu kulanka furmay kadib ayaa waxaa golaha loo aqriyay xeerka intaasi kadib ayaa waxa uu gudoomiyaha cod geliyay xeerka waxaana 38 mudane ay ogolaadeen in mooshinka la meel mariyo halka xildhibaanada kale ay ka soo horjeesteen intaas kadibna waxaa bilowday buuq iyo sawaxan oo ay sameeyeen xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Somaliland Baasho Yuusuf oo xakameyn waayay xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ayaa waxa uu soo xiray kulankii waxa uu ilaamay in kulanka dib loo qaban doono maalinta Sabtida ah sigaad gacanta taageen gacanta hal taago hadalkana hal joojiyo waxa soo kordhay laba xildhibaan baa ka 107 weeye gacanta yaa la dejin ilaa la dejiyo dhageysta xildhibaanada fadhiya tirada lagu celiyo 107 fadhiya imisa fadhiya dhan kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Somaliland oo warbaahinta kula hadlay iridda hore ee xarunta baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxay sheegeen in gudoomiyaha baarlamaanka uu jabiyay xeerkii uu yaalay kadib markii codeynta ay u badasay diidmo waxay ku baaqeen in aan shacabka xaalad degdeg ah la gelin iyadoo ay jiraan abaaro waxayna madaxweyne Muuse Biixi ugu baaqeen in arintan uu ka laabto halka xildhibaan qaar ay qabaan in sharci darro ay tahay in la soo istaago meelmarinta xeerkaani inta diidanna ay ku eedeeyeen inay nabadgelyo darrada ay qayb ka yihiin oo in xaaladan biri ambalka ku sukanay lagu soo rogay xeerarka degdegii inay waafaqsan yihiin iyo kale in laga doodabay ahayd iyadoo la gaarin oo shirgudoonku diiday in xeerka la qaybiyo doodna laga yeesho ay arkayseen markaati ka waahayeen ayaa markii uu codka geliyay 8 baa u codeeyay xeer in sida lagu socodsiiyo markuu arkay 7 iyagoo fadhiyaan ay 8 qura codeeyeen muu gaarin inuu yiraahdo yaa diidan hal lagu celiyo buuri waa taabaqlayseen waana mamnuuc marka uu codka hore qaado ee uu diiwaan geliyo ee haadii intay uu rigoor garaysto inuu halka ku joojiyo maaha waa yaa diidan inuu yiraah oo taana qoro yaa ka aamusay inuu yiraah oo taana qoro oo xeerku ku saasuqno ka dhaqan galo taa uu diiday uu tijaabo adarkayseen intuu tira geliyay buu haddana markuu arkay inay yar tahay joojiye haddana waa ka xeerosaadku wuxuu sheegay marka codeynta lagu jiro xildhibaan kaliya bixi karaa ma jiro maanta waxa dhacday iyadoo codeynta lagu jiro codeyn baa lagu jiro waa la tiriyay tiradii hore way dhacday marka codeynta lagu jiro waxa mamnuuc ah inuu xildhibaan ka baxo fadhiga ilaa inta codeyntu dhamaanayso ceebtii u weyneed baa maanta dhacday shirgudoonkii baa baxay iyadoo codeyn lagu jiro oo iska tagay taasina waa xeerosaadkii bay jabisay halka leedana way mari doontaa wasalaam sidoo kale siyaasiga mucaaradka Cabdiraxmaan Ciro oo shijir ay qabtay ayaa waxa uu soo dhaweeyay arrinka ay maanta isku istaageen xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka maamulka Somaliland xeerka xaalad degdeg ah waxaa saxaafadda hore inaan bogaadiyo baarlamaanka Somaliland labadiisa aqalba golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo maanta qaatay tallaabo taariikhi ah tallaabadaas oo ah inay diideen inay ansixiyaan maanta xukunkii military ama xukunkii degdega ah ee lagu soo rogayay gobolka Sanaag baarlamaanka waxa ku bogaadinaya in tallaabadaas ay ahayd mid ay sharciyada ugu hiiliyeen mid ay shacbiga ugu hiiliyeen codkaasi oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu dambeeyay warka wariyaheena Cali Xasan guud ahaan warkii duhur oo